munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka iyo macallimiinta madrasada Abubakar ee magaalada Wilmar ee gobolka Minnesota ayaa abaalmarino iyo shahaadooyin lagu guddoonsiiyay ardayda madrasadaasi. Ardayda oo si weyn isku soo diyaarisay ayaa waxa ay sameeyeen bandhig cajiib ah oo ay la dhaceen waalidiinta iyo dadka kale ee ka soo qayb galay xafladda. ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والقراءات تسهو بك السماوات وتنتشي الأكوام يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن. ما شاء الله ما شاء الله سلمان الله بركيه ما شاء الله تعالى. والله وwax aad loogu farxo ما شاء الله تعالى الله بركيه الله حفظيه سلمان muddada yar uu joogay ما شاء الله sidoo u dadaalay. sidoo kale ardayda ayaa waxay soo bandhigeen quraan iyo axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam. a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. sidoo kale waxay isweydiinayeen ardayda su'aalo diini ah iyo jawaabo. كم أركان الإيمان؟ اذكر أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسوله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كم أركان الصلاة؟ 14. اذكر النية القيام مع الركن تحبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع الاعتدال من الركوع. ardayda ayaa waxaa soo saaray macallin Cabdullaahi Daabe oo ku magac dheer daabe.com oo isagana la guddoonsiiyay shahaado sharaf ay u garteen maamulka iyo waalidiinta madrasada Abubakar. danka kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah maamulka madrasada Abubakar. hadaladoodii waxaa ka mid ahaa ku dhashay maxay ahayd maanta tartanka quraanka aragtaan saa u akhrinaya soo bandhigaya waxay barteen wax la heli kara maaha. أنا وقتك أدو كوبية وحن ربا إن أن والدين تا يأرضي ذا بقول بشاريه ونقول بشاريه أرضي ذا نظر كيسان القرآن كإلهي آخرنا وعرور تاني وإن هبل ين هبله محيا هيد وإن هبل ين هبل لكن قلبي قاضي مركي لفيريا وملائك سورة بلا أدمله نبي قانا شيء صلى الله عليه وسلم ما إن ملك دشوا وحله هلك رميه ما وحله هلك رماه نبي صلى الله عليه وسلم حويد قفك قرآن كإلهي سبحانه وتعالى آخرنا يا حقي سيسين يا سفي عنو يقانا وحول مذيه هي ملائكته. si kastaba ha ahaatee ardayda Soomaaliyeed ee ku dhalatay gobolka Minnesota ayaa kaalinta koobaad, labaad iyo saddexaad ka soo galay tartanka caalamiga ee Qur'aanka Kariimka ee lagu kala qabtay Dubai, Doha iyo Chicago. waxayna taasi muujinaysaa dadaalka ay sameynayaan ardayda ku dhalatay dalka Mareykanka. Asmar Cabdinuur, Nabad TV, Minnesota.